السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليق سودا إن شاء الله إن شاء الله آد باندين سلام يا لمانتين سودا إن شاء الله. أوكي وركا يدين مسي ولا دينيا قيب كم إذا أيان يدين سي دينيا سان ساكا يدين لو هرت مركو غورس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعي يموقعي بتقانب شعبك الصوماليات وإن سلام وحندكم سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أتساكا للسعودين لايف كيغان لايف كي كهري وحندين لو ذاقي قبر ير الصومالية oo iyadoo 13 sano jirta laga kaxeeyay gobolka Minnesota oo uu celiyay aabaheed gabadhaas yar oo hooyadeed aanu garanayn meel ay joogto oo ay kala tageen. Masar Ismaaciil ayaa waxa uu ahaa technician-kii ii xidhay daahay saan idin sheegay. dad ka tirsan xirta sheekh oo waliba aad loogu kalsoon yahay oo dadkii xirta sheekh ugu sarsareeyay ah ayaa waxa ay ka tageen gobolka Minnesota. waxa ayna tageen goobtii ay joogtay gabadha waxa ay soo duubeen fiidiyo tigidhadii dadkaas ku baxeen iyo everything oo dhanna waa la idin hayaa. fiidiyo ay soo duubeen waxay la soo kulmeen gabadhii. report-ka saan idin sheegay waxaan u gudbinay dawladda. wax qarash oo haba yaraatee dawladdu ay haddeed nasiyeen ma jirto. waxaanu isticmaalanay cunana jaabkayga wax qarash oo community ay bixiyeen ma jirto, laakiin abaalmarinta gadaal ayay ka bixin doonaan dawladda. Ismaaciil waxa uu dhalay 9 caruur oo kale oo ay xaas kale u dhashay jooga halkan. sidaan idin sheegay gurigiisa baa la galay, waa la gabagabeeyay, fitr faatir baa loo qaaday, iskuulkii baa caruurtii loogu tagay. sheekadii aad bay u xumaatay. dulmigu wax fiican ma aha. Ismaaciil saaka guriga waa igu yimi wuxuuna ila wadaagay xog aad iyo aad u badan. dulmigu wax fiican ma aha, laakiin waan is afgaran. waxaan isku afgarannay shacabka Soomaaliyeedna aan doonaya aan live-kan ugu soo galay. okay shacabka Soomaaliyeed aan live-kan ugu soo galay in hadhow aan la igu soo eedeynin qoys Soomaaliyeed ayaa Cabdixakiin jaajuusay oo caruurtii laga qaatay. qoys Soomaaliyeed ayaa Cabdixakiin dhibaato gaarsiiyay. aabba Soomaaliyeed ayaa la xiray. aabbaha Soomaaliyeed wuxuu galay dambi. aabbaha Soomaaliyeed wuxuu sameeyay dambi. aabbaha Soomaaliyeed waxa uu sameeyay caydhi uu ku cunay xitaa inanta yar ma uusan xidhin markuu geeyay Afrika. Masar Ismaaciil waa nin u dhashay beesha ogaadeen reer Cabdulle Maalinguur. afkiisa ayuu iga qariyay. conversation-keena dhex maray aniga Ismaaciil aanu isku afgarannay qayb ka mid ah ayaan idin wadaagaya. Ismaaciil waxaan isku afgarannay wuxuu ku jiraa track training. waxa uu baxayaa 2 weeks ka bacdi. waxa uu marayaa corona viruska shaadkiisa iyo wixiisi talaaladii. waxa uuna keenayaa gabadh yaray. Ismaaciil dulmi badan buu sameeyay. ilaahayna dulmiga ma jecla subhanahu wa ta'ala. gardaraduna wax fiican ma aha. qofka gardarani weligiis ma guuleysto. Soomaaliya ana maanta idin dhahay. waa maxay sababta Mr. Cabdixakiim Cusmaan Nuur xeerta sheekh uu mar walba u guuleysto wax u baabi'iyo? okay waa qabanaya iska sug anaa qabanaya ii kaadrood anaa qabanaya sug. okay waa qabtay dhan war ka seexo. waa maxay sababta oo Mr. Cabdixakiim Cusmaan Nuur uu mar walba u guuleysto waxna u baabi'iyo? because waa daacadnimada, waa runta. qof ka daran qof laga guuleystay haddaad aragto waa qof ka daran. anigu dulmiga ma jeceli mana ogoli. idabdaradana ma qaato. gabadhii yarayd ee la oran jiray aabaheeda baylood ahaa ee la soo abaabulay been bay ahayd. weligeed Maraykan ma arkin aabaheedna baylood ma noqon. waalidkeed iyo ehelkeed oo dhan baa yaqaanay. Soomaaliya oo dhan waa u soo bandhiga. dad baana doonay inay lacag cunaan, laakiin gabadhan Maraykan bay ka tagtay. aabaheedana qaadna, qabiilkeedana qaadna, dadkeedana qaadna. Masar Ismaaciil waa yimi hadaladii aan isla wadaagnay qayb ka mid ah ayaan rabaa inaan idin wadaago. Ismaaciil baad ila daawan doontaan mar dhow. sug okay sug
اسماعيل واسولو يهي واكن اسماعيل. اوكي عدكم ما مقلسان سودا اوكي عد ما مقلسان مياه اوكي وايد كجوينيا هدا عد مقلسان ها سو قرا ها سو قرا هدا مقلسان عد هدا مقلسان ها سو قرا ديك الوايد كجريا اوكي ما يبي تري روضه محمد كرديه وحو دحاي ها روضه هذا ka khaldan yihiin kabax waan maqlaabay dhahdo okay false aadan الله يا عزة الله يا عزة اوكي مصر اسماعيل قيب كميده ويان ورئيسك oo dhan maaha اوكي dadkeeda abta daramaan tuuraya oon blog saaraya raaliga ahaadaya بعدين سو دوينaya wali Masar Ismaaciil اوكي halka inoo joojiya aad bay u dheer tahay conversation kana dhaxmaray aniga iyo Masar Ismaaciil aad bay u dheer tahay waa wax aad u dheer waxyaalo badan baan ka wada hadalay talooyin badan oo Soomaalinimo ah iyo talooyin Muslimnimo ahna waan siiyay roodo waa la maqli doonaa hadagdagin qaskan iga dhaaf roodo Buntland inaad eray qaska iga dhaaf Ilaahay ku dhaafshay ولا مغلي دونا ان شاء الله باذن الله الكريم ورئيسك او دن وان idin soo gelinaya isagoo video